Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba dadweynaha ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa warbixino cusub oo ka imaaday dhanka iyo Konami. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa laba mowduuc. Mowduuca ugu horeeya waxaa waaye Players of the Week-yada la keeni doono maalinta Khamiista ah. Mowduuca labaadna waxaa waaye Saudi Team baa shirkaddu waxay u dabaaldegaysaa 850 milyan oo downloads ah. sidoo kale waxaa soo dhow sanadka cusub sanad walba oo cusub shirkadda way dabaaldegaysaa oo eFootball-ka ah marka maxaa keeni doontaa waxyaabahaas ayaan kula wadaagi doonaa muusow soo dhawow muuqaalkan like saar channelkan subscribe dheh gambaleelkana furo si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida ay kulato waayahay waxaan ku hormaraynaa dhanka iyo waxyaabaha ka cusub eFootball ama waxyaabaha markaasi dabaaldeg la keeni doono waxaa la keeni doonaa Saudi Team ba festive season campaign-kan waxaa ogtihiin sanadkii 2023 in mar la keenay oo waxyaabo xasaasi ah markaas laga faa'iiday haddana waxaa la leeyahay kan ayaa la keeni doonaa oo mar kale ayaa 2024ka lagu soo celin doonaa oo waxyaabo xasaasi oo players waxyaabahaas laga faa'iidayo Saudi Team waxyaabaha kale oo la keenay shirkadda ay keentay sanadkaas 2023 waxay ahayd Spanish League Tigers-kan oo laba mar free lagu siinayay oo aad tuuranaysay Saudi Team markaas waxaa la keenay Forlan Diego Forlan Johan Cruyff iyo ninkan la yiraahdo Raul saddexdan ayaa laba mar free lagu siinay inaad tuurato waxyaabaha kale oo xasaasiga waxaa waaye shirkaddu waxay u dabaaldegaysaa Happy New Year ayay u dabaaldegi doontaa sanadka cusub inay keento ayaa la filayaa in markaasi asigana waxyaabo badan oo xasaasi ah in aad ka faa'iido waxaa kale oo ogtihiin festive season campaign-kan in mar la keenay oo 200 oo coins 720,000 oo GB ah iyo waxyaabo kale oo dheeri oo trading waxaas inay ka faa'iiday 2024kana waxaa la rajaynayaa in campaign-kan oo kale la keeno ayaa la filayaa asigana meesha kama marno waa ka oo festive season campaign 200 oo GB ah 200 oo coins iyo 400 oo GB waxyaabo dhidhi aan la soo koobi karin iyo legendaries oo players oo markaasi afar mar free ah tuuranaysay waayahay mowduucani labaad haddaan u gudubno waxaan ka hadli doonaa Players of the Week-yada la keeni doona worldwide 19ka bishan la keeni doono waxaa waaye saddexdan rag ayaa shaashada la soo saari doonaa 22da haddii aan kula wadaago waa ka waxaan u horeeyay Son Alexander Isak iyo ninkan u ciyaaro Paris aad ay u farbadan yihiin raggan ayaa la filayaa in markaasi la keeno raggan haddii aan mid shaashada idinku soo saaro oo ratingkooda waxa uu gaaraya isla fiirino waa sidaan mid ayaan shaashada idinku soo saaraya qof walbo wuxuu uu gaarayo iyo ratingkiisa wax walbo halkan aad ka arkaysaa wuxuu uu ku bilaabanayo iyo waxa uu ku dhamaanayo hadda shaashada aad ka arkaysaa waxaan kaloo kula wadaagi doonaa marka ay ciyaaryaanadan ay dhamaadaan 11 qof waxaa kaloo jiro ciyaaryaano markaasi ayagana la filayo in la keeno waxaana u horeeya Bruno Fernandes asigana waxaa leeyahay waa la keeni doonaa ciyaaryaano waxaa waaye 50-50 waa in la keeno in la keenin way u badan tahay marka ayagana waa intaan raggan aan hadda shaashada ku soo saarayo waaye marka muuqaalkeeni kuma dheeraanayo muuqaal kale ayaa soo wada oo warbixino kale oo xasaasi ah oo si degan markaasi aan u sharxayo haddaba si uusan kuu dhaafin channelkan subscribe dheh gambaleelkana furo muuqaalkan like saar si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaad oo kaleeto mahadsan